afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya Diina Al-Mufti waxa uu shaaciyay in dalkiisu ku haminayo inuu saldhig military ka dhistaan badda cas balse muu carabaabayn dalka ama gobolka ay Itoobiya ka dhisan doonto saldhigga. afhayeenka oo shalay shir jiraayad ku qabtay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya ayaa sheegay in dalal kala duwan u muujiyeen Itoobiya rabitaankooda ku aadan kantaroolka danaha gobolka badda cas iyo in laga dhiso saldhigyo badan oo military. waxa uu cadeeyay inuu dalkiisu si dhow u danaynayo arrinkaas waxaana wax laga walaaca ku tilmaamay xaaladda dhimatay ee ku gadaaman mandaqada badda cas. si kastaba ha ahaatee Itoobiya waxay dhawaan soo bandhigtay ciidankeeda cusub ee badda kuwaas oo ku hubeysan hubka mariiniska. ciidanka badda Itoobiya waxay hore saldhigga ciidanka badda ku lahaayeen magaalada Masawi ee dalka Eritrea ka hor intaysan Eritrea ka xoroobin Itoobiya bishii May sanadkii 1991.